General Odawa oo sheegay in ciidanku madaxweyne Farmaajo ka amar qaadanayaan xilligan wixii ka dambeeya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka xanaaqay iyo tallaabo ay ciidanku dib uga qaadeen oo ay maamulkooda ku hesgoynayaan madaxweyne Farmaajo tallaabo uu qaaday Xasan Sheekh inta uu ku sugnaa Mareykanka oo bahadilaad ku noqotay ciidamada warbixintan ayaynu kala wadaagi doonaa xog muhiim ah oo banaanka keenay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage sababta uu madaxweynuhu u wadanin taliyaha ciidanka maadaama arrimo difaac laga hadlayo markii uu la kulmeeyay wasaaradda Pentagon-ka Mareykanka sheegay warbixintan oo ka faafiyo dunida meel ku tabar muuqaalka qaybta falada nagu wadaag rabtidiina waa hagaagan ku bilaabo kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada hadii baad guuleysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ku egtahay gurigaaga sida axaadiista rasuulku ay sheegeen hadaba ma jaanis ma u weeday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqeyso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u la xiriirno maxadka tartiil quraan online taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa banaanka keenay xog la yaab leh oo muujinaysa sida Xasan Sheekh Maxamuud uu san markaasi ugu muuqaneen ciidanka Soomaaliyeed ixtiraamaya ama xataa u haya qadarin ah in ay difaaca dalka qayb ka yihiin madaxweynaha ayaa tagay magaalada Washington ilaa iyo haddana waxay ka wada hadleen lama yaqaano madaxa hay'adda Pentagon-ka Mareykanka oo la kulmay madaxweynuhu ma aanu wadanin sargaal ciidan oo dowladda Soomaaliya matalay taliyaha ciidanka qalabka sida uu ka tagay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ma wadan xataa la taliyihiisa amniga qaranka ma aanu geelin kulanka Odawa Yuusuf Raage oo war la yaab leh ka soo saaray arrintaas ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada qalabka sida aan lagu hadlayn karin xilligan wixii ka dambeeyay ay ciidanku maamulahaan hoostigi doonaan madaxweyne Farmaajo taliyayaasha ciidanka booliiska ciidanka lugta ciidanka gobolka Banaadir ayaa dhamaantood ku waafaqay Odawa Yuusuf Raage talaabada uu soo jeediyay waxayna xilligan ciidanku ka amar qaadanayaan madaxweyne Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud oo arrintaasi ka xanaaqay ayaa soo hadlay isagoo sheegay in aysan macquul ahayn laakiin Mareykanka laftirkooda ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ku canaantay sababta uga soo tagay saraakiisha ciidanka oo isagoo kaligiisa u tagay wasaaradda gaashaandhigga مسؤولين iyo siyaasiyiin caan oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu bahdelay saraakiisha ciidanka qalabka sida madaxweynaha Soomaaliya waxa uu joogaa Mareykanka waxa uu sheegay in madaxweynaha Eritrea uu diiday inuu ciidamada dalkaasi joogay Soomaaliya dib loogu soo celiyo si aanay Soomaalidu siyaasiyiinta fikradaha kala duwan qaba isugu isticmaaleen ciidankan waa ciidan loo tababaray inuu gacanta mariyo cadawga shabaab oo wax qarsoon ma ahan inuu socdo abaabul iyo qorshe dagaal oo ay dowladdu ku weerarayso siyaasiyiin ka fikir duwan oo ay saddex kamid yihiin midowgii musharaxiinta halkay afar kalena yihiin madaxdii nabad iyo nolol warkan oo daabacay wariyaha lagu magacaabo Maxruuf Xaaji ayuu ku soo bandhigay xogta la yaab kale ee ku aadan sida madaxweynuhu arrintan uga fikirayo sidoo kale gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ee dhinaca ammaanka Cali Racali oo ka hadlay arrin la yaab leh oo la xiriirta sida uu Xasan Sheekh Maxamuud ugu bahdilan yahay Mareykanka markii uu tagay ayaa banaanka keenay xog uu la wadaagay xubin ka tirsan agaasinka madaxtooyada Soomaaliya
cali racale ayaa sidan qoray dagaal adag oo khawaarijta ayaana ku jirnaa fursad weyn ay ahayd inuu xogayaha difaaca maraykanku ku qaabilo madaxweynaha waana fariin maraykanku noo diray oo muujinaysa sida uu noo garab taagan yahay yaabku wuxuu ahaa in maraykanku oo la hor fadhiisto Pentagonka 3 qof aan midkoodna aanu amniga iyo ciidanka wax shaqo ku lahayn xataa aan wax fahma ka haysan arrintaasi waxay saaxiibada madaxweynaha ka bixiyeen fasaraad markaasi qofka ku sii abuuraysa wareer hor leh cali racale ayaa sheegay in xilligii qadada mid ka mid ah odayaasha jilba culus ee madaxtooyada ay kula kulmeen iyagoo dhowr ah magaalada Muqdisho waxayna weydiiyeen sababta wasiirka gaashaandhigga la taliyaha amniga qaranka iyo taliyaha ciidanka aanay uga qayb galin kulanka Pentagonka la yeeshay oo dad caadi ah meesha loogu xushay in la geeyo laakiin ninkaas ayaa bixiyay war la yaab leh waxa uu na sheegay in wasiirka gaashaandhigga sababta loo reebay ay ahayd inuusan baabkaasi waxba ka ogeyn oo ay baab kabiir tahay isagana uu yahay dhalinyaro ah oo aan xamili kan arrimaha noocan oo kala ah duruufo lagu qasbanayd awgeedna ay meesha ku yimid sababta taliyaha amniga qaranku u tagi waayay halkaas waxa uu ku sheegay in ninkaasi uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilna isaga ilaaliyo ilna shaqada ugu diro maadaama xogta uu bixinayo hadii maanta xilka laga qaado idaacadahana uu ka qeyliyano taliyaha ciidanka sababta uu u tagi waayay meesha ayuu ku sheegay inuu howlgallo gobolka Hiiraan uu ku mashquulsan yahay hadal la yaab leh ayuu sidoo kale bixiyay isaga oo sheegay sababta uu xasan sheekh maxamuud u watay 3 nin ee meesha ku helinayay aan ragaasi ay ka mid yihiin siyaasiyiinta aan markaasi awood badan ku lahayn siyaasadda gudaha dalka isla markaana loo baahday in aan meesha la geysan raqaba ila waaweyn ka dhashay shaqreeyo xagan qad falan wada wartiin tan iyo kulantada marna badgeliyo kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada hadii baad guuleysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga sida axaadiista rasuulku ay sheegeen hadaba ma jaanis ma u weyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka waalid weynaha qurba ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u xiriirno maxadka tartiil quraan online